ayaa laga filayaa reer walbo yaa lagu gaadi reer walbo yaa lagu gaadi waan idin sheegayaa xeesh waxaan rabaa sunno reer mudug ku daydaan oo reer galgaduud ku daydaan oo Soomaaliya ku daydo oo muslimku ku daydo inaanu halkaan bari iyo bari dambe idinka tusno haddii Allah idmo saasan doonay oo waxay tahay waxaan rabnaa xijirtii dadka reer beel fulaan wixii laga dilay oo agoon koriska ah oo lagu soo talagalay Sheekh Mursalin loo dhiibo guddiga farsamada ku talagalay reer bari fulaan wixii laga dilay agoon koriskii iyo si kale haddaan u iraahdo godob tirkii aniga ilaydiibo iyo xurmadayda socota marka lacagta gacanta ku dhigno baa waxaan leenahay hebel hebel oo agoon ahaa yaa u wakiila hoogudoon yaa u wakiila hoogudo waxa weeye maxaa shirka ajanda u ah hadda ay tiraahdeen qodobka koowaad oo bari waa saas oday walbo lacagtii waa laga rabaa waxa laga rabaa furkii baa laga rabaa waxay kaloo dhimanna waa u gudbaynaa waxa dhiman oo shirkan lagaga hadli doonaa dadkii meeldigoodu wax u dhimanaayeen inay guddiga sare iyo culummada iyo cuqaashii labada guddi ahaydna ay meel dhigaan oo ayagoo qabyaha aan laga teginin odagii wax soo wato dib u dhigo ayadoo qabyaha inaan laga tegin raggii la isku hayay wixii dhimana in halkaa lagu dhameeyo ayaa la rabaa haddii alla idmo war ma garateen waxaa la rabaa inaan midowno inaan isdhexgalno waxaad samayn jirteen marmarka qaarkood markii magta la kala qaato gabar godob tir ah ayaad samayn jirteen gabdhihii ma ku daraamisa waa ka dayna waa lagu darkanayaa waxaan rabnaa oo shirkan ajandayaashiisa ka mid ah isdhexgal iyo midnimo isdhexgal iyo midnimo ayaa lagaga hadlaya insha Allah ta'ala wixii kaloo lagaga hadli doono odayaashii siyaasiyiinta u deyn doona sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi